madax dhaqameedka cuqaasha iyo waayeelka degmada Garadag oo saaka kulan warbaahineed ku qabtay goobka nabadda ee degmadaasi ayaa ugu horeyn babaaq nabadeed u diray colaad sababtay dhimasho iyo dhaawac oo maalintii shalay laba arday ku dhex martay magaalada Fadhigaab oo ka tirsan degmada Garadag ee gobolka Sanaag waxayna u soo jeediyeen cuqaashani beelahaasi dirirtu dhex martay inay ka waantoobaan colaadda sidoo kalena ay ilaashadaan nabadgelyada. halkaan joogno waa Garadag ragaalka jooga waa garanaysaan waayeelkii reer Garadag cuqaashii wax garadkii daan reer Garadag nahay saaka waxaanu jeedinaynaa waxaan ku raahday baaq baanu jeedinaynaa baaqaas waa laba baaq weeye mid waxaanu jeedinaynaa Somaliland midna reer Garadag u diraya walaalahay ku dagaalamaya Fadhigaab waxaan leeyahay reer Fadhigaabow iyo reer Boholow joojiya waxa wadaan war dalka ka dagaal ka daaya maalin walba inama la soo qoro reer taaguma haynayno waxa kale istaan ma jirto intii dhawatay Allah u naxariisto inta dhaawantayna Allah ha caafiyo war waxa laga waantoobo xukuumadana waxaan u budirayaa baaq xukuumadda baaq dheer baan u dirayaa xukuumadda wax weeye marka halkan idinka sii daayay ama ceel fuuy ha noqoto ama ceeriya ha noqoto ama Fadhigaab ha noqoto ama ka noqotay meesha wax ka dhacaan ha ka odaynay dawladda u dawladeeya ninka qabta oo qoriga qabta oo geela qabta oo ragga xiniya qabta dee hadii kale wada marka kale cilisaan ku joogaan waxa kordhimaysan madaxweyne Muuse Bixi waan ku talin inuu go'aamada ka qaato arinta bari ka soconaysa dagaalada halkaan naga joojiyo wasalaam shirkan jaraa'id waxaan u qabanay marka hore inaan tacsiyo dirno wixii shalay ku dhintay Fadhigaab wixii ku dhaawacmayna aanu ducayno in Ilaahay caafiyo ta kale sida uu chiefku sheegay dagaalku muddo inagu dhex rafanayo dagaalku hadaan waqti ba lahayn oo dadka wada garaadkiisu siineen inuu waqti u sameeyaan oo ay dagaal ka dhex baxaan dhamaan maayo mar walba cid baa nool hadii qofkii nool uu la dilo qofkii kana ma soo noqonayo taa intaasan kale yahay dhacdadii shalay Fadhigaab ka dhacday wixii ku dhintay Ilaahay baan uga baryaynaa inuu Ilaahay u naxariisto iyadoo aan aad uga xunnahay dhimashada ay dhinteen inay qayra sharci tahay oo sharci darro ay ku dhinteen oo Ilaahay agtiisana aan runtii warwar badan uga qabno haddana Ilaahay waxaan anagu uga baryaynaa waa dad uun aqliga ka tagay oo aan wada dhalanay Ilaahay ha naxariisto waa qodobka labaad waxaan leeyahay ka dhaawacana Ilaahay ha insha Allah dagaalkan ka dhacay Fadhigaab in badan waxa marqaati Ilaahay ka tiin Somaliland inaanu in badan ku baaqnay nabad haddaanu reer Garadag nahay weey dagaalkaana aanan mid hore iyo mid dambe iyo mid shalay dhacay midna aanan waxba ku lahayn baaq nabadeedna in badan aanu ka soo jeedinay hadeerna halkii baanu ka taaganahay baaq nabadeed baanu ka soo jeedinaynaa intii dhimatana Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah caafiyo dagaalka cidii ku dhimatay Allah u naxariisto cidii ku dhimatay Allah u naxariisto cidda dhaawacantayna Allah caafiyo in yar baan u sii raacinaya waxaan habeen walba TV-ga ka daawada suldaamo yiraahda Somaliland iyo Soomaaliyaanu dhex gelayna Allahumma salli ala Muhammad Ilaahay oo rabbo maqaamkaayna joojin waxaan leeyahay suldaamada horta marka hore waa ka badan yihiin militariga lama wada dooran nin waliba koofiyad bacab qaato guri baa geeyay Ilaahay sharkiina hana moodsiyo rabbiga weyna waduudka siyaasad baa laga leeyahay anigu maalinta siyaasad laydin ma dooran waxa laydin doortay dhaqan ordo qaboojiya ummadda usleena saddex gala oo kala xaq siiya oo guriyeena ku eg dhanka kale cuqaasha iyo madax dhaqameedka Garadag waxay si adag u naqdiyeen jabhad maalmo ka hor lagaga dhawaaqay buuraleyda Siraadle ee gobolka Sanaag taasi oo ay ku tilmaameen cuqaashani midaan sal iyo raatoon ku lahayn deegaanadooda iyagoo sidoo kalena sheegay inaanay iminka jirin waxay ka beel ahaan ka tabanayaan xukuumadda madaxweyne Biixi waxaan nahay beeshan la yiraahdo biciid hadaan nahay ama Muuse Bakar baan nahay waxaan nahay ragii dalka xoreeyay ee tacab badan kaga baxay dalkii aanu xoreynay ee tacabku naga baxay xukuumadda imka haystaan aanu Garadag ku dhisnaa kulmiye aanu nahay xuduntiisa aanu nahay nagama suuroodeen oo jabad ku dhawaaqno jamhadda la sheegay leeyahay jamhadda lagu dhawaaqayna wax jira maaha inta uu sheegay Somaliland iyo caalamka wax jooga jamhad Muuse Bakar ama biciida oo lagu dhawaaqay ma jiro afarno meel istaago TV iska qaadama Facebook soo sawira ma matalan qaran kan inta ma matalan magaciisa kuma ciyaari karaan
reer ballaaran waa reer somalilan waa reer mascumad leh waa reer habar jeclo hoos uma fikirtay kor bay u fikirtaa ninka markaa iska hadlay reerka loo soo qaadi maayo magaca musaaba kor baan ku hadlaya magaca biidan ku hadlaya waxba kama jiraan waxaa fiisbiyada la gelinaya manhajka loo wareegayo sidaas somalilan baan u sheegaynaa kalena waxaan ka leeyahay jabhaddan uu sheegayay iminkaan jiifku waanu maqalnay annagu meel naga fog baa sawir laga soo qaaday oo buuraha ceerigaaba oo layidhi jabhad muuse abukar baa halkaa laga aasaasay haddaanu reer gardagnahay waxba kama ogin annagu waxaanu talana ku leenahay iyo waxaanu dad ku leenahay midna ma jirto jabhadduna dee afka baarkii maaha qalab bay leedahay talay leedahay dhaqaalay leedahay naguma matelaan muuse abukarka ay sheegeen intaasaanu kusoo gebageb ereyga labaad aan u baxaya waxaa weeye jabhad la sheegay magaca muuse abukarna lagu sheegay oo dee aanan arag oo layi buuraha bariga sanaag ayay ka hadleen magac ayagana ku hadlay muuse abukarnimo ku hadlay muuse abukar dee reer yar oo 4 nin oo aan magacooda la aqoon oo waayeelkii iyo taliyayaashii reerka lahayn dee magac ay sheegaan waxaan leeyahay dadka islaamka ama somalilan dee magacaasi ma geyno nimankaa yaryar sidooda ha loo qiimeeyo laakiin muuse abukar baa jabhad samaystay marka hore waa magaxumo xagga dhawaaqan jabhadda sheegatay ee bari ka baxday sida hargeysa u maqashay ama gobollada u maqleen baanu u maqalnay niman war ka haya ma nihin niman ogna ma nihin haddii ina yaroo shaqadiisii ku fillaan waayo askari ahaayoo shaqadii laga eryay uu jiro adeer haddaad shaqadaadii ku fillaan weyday dawladdaada iska bariyo waxaad tidhahdaa shaqadaydii haddaan ku fillaanayaaye ii celiya ha oo igu celiya dheh laakiin jabad baan annaga aad noogu baaqdo annaga magacayaga isku sawirto adeer kaama ogolin damiyaa tibi jabhaddaasi saamayn kuma leh deegaanka iyo dadka iyaga midna saamayn kuma leh ogaalna kuma leh aragtina kuma leh maqalna kuma leh dhaqanna kuma leh talana kuma leh cid kasta oo maqasho magacaa xambaaratana waxaan leenahay magacaasina cid ku dambowday oo aan xaq u lahayn baa sheegatay anigu waa u heesayaa waxaan ugu heesayaa heestii habarta busaaradowda inankeedii ku ooyey waxay tidhi samowa samow samowa samow sarariyo legowa sadkii rabbi keenadowa samiya khayr baa dambeeye sad baa rabbi soo sidaaye ma seelseelkaad run moodi inamadaa taasaan ugu heesaya seelseelka run ha moodine hayna ka dharsinina ciyoon bay godol qaadaysaa wayna deeqaysaa waxa weeye qodobka koowaad waxa weeye jabhadda halkaa lagaga dhawaaqay annagu jabhad aanu aqoonsannahay iyo mid jirta iyo mid aanu wax ku leenahay iyo mid aanu tala ku leenahay midna maaha sidaa Soomaaliland u maqashay baanu anana u maqalay waxa weeye jabhadda waxaan leeyahay adeer waxa weeye filinkan horaa loo jilay qaaxaa lagu jilay maanta filin jilmaya ma aha baan leeyahay jabhadda filinkan nimanka halkaa ka dhawaaqaya filinkan filin jilmaya ma